waxaan rabaa guud ahaan inaan u mahad celiyo saraakiisha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwanaa runtii howlgalka halkan ka dhacayay amba operation-ka halkan ka socday qayb ka ahaa waxaan leeyahay runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii waxaad gudateen waajibaad aan u qaadna qarankeena aan u qaadna ummadeena aan u gashanay dareeska aan maanta ku jirno una dhaaranay xaqiiqatanka waxaan dhihi karaa runtii guul la gaaray tan uguma horeyso tanna uguma dambayn doonto idinka ilaahay waxaan rabnaa in ay hore u sii socoto la dagaalanka iyo dabargoynta nimanka argagixisada ah wax kale maantay runtii lagula tacaali karo oo waxa aad hadda kula tacaasheen aan ahayno ma jiraan option kale iyo choice kale haddii aan u hayno waa u keeni lahayn laakiin aqliyadoodii ayaa intaas noqotay ummadda Soomaaliyeedna dabcan maanta kadib siima dul saarnaa karaan wax allaala iyo waxay u geysan karaan oo bini aadmi inuu sameeyo aan u bannaanin way u geysteen ummadda Soomaaliyeed hadday noqon lahayd dhiigooda hadday noqon lahayd sharafkooda iyo cisigooda hadday noqon lahayd naftooda iyo maalkooda wax ay u lahareen ummadda Soomaaliyeed ma jirto waxaad la socotaan runtii madaxweyne iyo wasiir iyo guud ahaan maamulka qiimaha badan oo qof walba mansabkeeda dabcan aan ku xusaayo xaqiiqatanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in muddo nimankan argagixisada howlgalla ayuu kula jiray sanadihii ugu dambeeyay deegaano badan dadku waxa laga yaabaa inay fiiriyaan ilaa intee la xureeyay laakiin waxaysan weli dadka Soomaaliyeed aysan fiirin cadawga sanadihii ugu dambeeyay maxaa gaaray saaraha gaaray intee la ekaayeen muddo 2 sano ilaa 3 sano ah aan soo dhaafnay al-shabaab goob ay ku dagaalamin ay guul kala noqdeen ma jirto waxa haddana ilaahay mahadiisa in maanta dadka Soomaaliyeed ay garwaaqsadeen oo ay fahmeen wax la sii fiirsan karo inaysan ahayn haddii aanay naf ku badbaadin oo aanu maal ku badbaadin oo sharaf iyo cisi aanay ku badbaadin oo wax ku dhowrsano aysan jirin maba garan kara wax hadda dadka Soomaaliyeed waqtigan inay ku soo gaarto maba ahayn laakiin ilaahay baa mahad iskale dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo maamulada dawlad goboleedyada runtii in ay maantay dabcan bulshadii iyo qarankii dawladii dhaxaba dhammaan in bulshadii aan kala harin dhinac kastay tahay ay ka go'an tahay inay nimankan la dagaalamaan dabcan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu sii wadi doonaa dardargelinta iyo xoojinta howlgalladaas waxaan Allah subhanahu wa ta'ala naxariistiisa janno uga baryayaa guud ahaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada alifleyda dableyda runtii ku shahiiday howlgallada kala duwanaa ee dalka ka socday inta ay ku jireen inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay ilaahay caafimaad ha siiyo meeshaan dabcan hadal badan uma baahno just kaliya waxaan ku soo koobayaa dhammaan in allaale iyo inta ka qayb qaadato qof walba kaalinta ay ku leeyahay deegaankan inaan hadda maanta isugu nimaado aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin waxaan dabcan rabaa inaan uga mahad celiyo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada dabcan guulaha ay ka keeneen dagaalka nimanka argagixisada lagula jiray halkaan ciidan badan fadhiya waxa ciidan runtii xusid mudan waxa halkaan nala jooga magaalada Muqdisho ciidan ka soo baxay oo hadda inta noogu yimid ayaguna inaan Dhuusamareeb ka soo baxno aan sana dhaqanimada ma ah halkaan inay nala fadhiyaan oo maleynaa saraakiisha dabcan konfoygaas waday saraakiil iyo saraakiil xigeenno aad u qiimo badan oo magaalada Muqdisho ayaguna ka soo kaxeeyay gaadiid iyo qalab ay ciidankaanu lahaayeen oo dhulka si nabad ku soo maray waxaan u maleynaa waqti u dambeysay inaysan dhaweyn ya waqti u dambeysay inaysan dhaweynaan fila kaliya intaas ma ahane waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala ayadoo dhammaan wadooyinka ay furmaan oo dadka Soomaaliyeed si nabada oo aan cidna uga baqayn oo qashqashaad la'aan oo cabsi la'aan oo walwal la'aan ay wadooyinka isku mari doonaan hadii Ilaahay yiraahdo wadadaan hadda weyna isku xirtaa meesha la yiraahdo caasimadda Galmudug Dhuusamareeb iyo magaalada Beledweyne waxaan ognahay bil ka hor sida ay ahayd iyo maanta sida ay tahay idanka Ilaahay waxaan rajaynaa nafiskaas iyo muxuu ahay ii sheeg naruuradaas in ay gaarto dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan way naga go'an tahay dabcan waana sii xoojin doonaa mar labaad waxaan ku soo gabagabeynayaa uga mahad celinayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenada qiimaha badan iyo askarta alifleyda dableyda runtii qaybta weyn ay howlgalkan ka qaateen
waxaan isleeyahay madaxweynaha stateka oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo dhammaan maamulka waxaan rabaa marka madaxweynaha iyo gobernatooraha gobolka iyo gudoomiyaha degmada iyo wasiirada iyo dhammaan xubnaha halkan nala jooga waxaan codsana dadka Soomaaliyeed qof walba gurigeeda inay waardiyaysato waajibay ku tahay nafteeda iyo maalkeeda inay waardiyaysatana waajibay ku tahay marka laga soo tago shaqada guud ee ciidanka u taala haddana muwaadinku sharafkiisa inuu ilaaliyo oo ka qayb qaato laftarkeeda amnigiisii wax saaran waxaan rabnaa marka sida deegaanada badankoodba hadda qaybo kamid ah ka socota deegaanadan taasoo kale inay noqdaan oo abaabulkaas oo kale uu yimaado salaanka bacdi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle oo na waafajiyey guusha maanta ciidanku ay soo hooyeen iyo guud ahaan dadka deegaankan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaqsoor annaga iyo daalimiintaas isku miisaan nama saaraayo oo waxaa xaqiiqo ah nasriga inta wanaagsan oo khayrka iyo maaragta barwaaqada iyo ummaddan badbaadadeeda inta ka shaqaynaysaa nasriga iska leh boqco walba oo cadowga uu ku sugan yahay dhibaatada uu ku hayo shacabka Soomaaliyeed waa la ogyahay taasna waxaa keenay in dadka Soomaaliyeed ay ogolaadeen in dulmiga lagu dulhaayo oo korkooda dulmi lagu falo laakiin haddeer waayahan dambe dadka Soomaaliyeed waxay garwaaqsadeen dulmigan haddaan la iska qaadan ilaahay roobkiisa xataa inaan la helin ilaahay meel la isku dulminayo dad dulminayo uma naxariisto waa tii maaragta xadiidku ahaa dulmi haddaa aragtiin gacantiina ku zuuliya waajibka koowaad uu ahaa Soomaali hadda waxay u soo jeesatay inay dulmigii iska zuuliso deegaan walba oo ay joogto cadowga lala diriraayo waa cadow naxariis darro heer uu ka gaaray quraashada iyo shimbiraha iyo xayawaanka iyo bahaa'inta wax allaal wixii nool ayaa ceelkan biyaha ka cabaya wuxuu ka shaqaynayaa subax walba sidoo ceelkan u qarxin lahaa sidoo ceelkan u dumin lahaa waxay ku tusaysaa wax nool oo dhan ilaahay intii abuurtay oo dhan inay la diriirsan yihiin wuxuu ka shaqaynayaa laamigaas qof walba oo bani aadan ah qofka waayeelka haweenka uurka leh oo magaalada loo wado iyo cid walbaa marto maanta dhan miinuu ku abuuraya waxay ku tusaysaa wax arxana iyo wax naxariisa inuusan u helin wuxuu ka shaqaynayaa maanta oo dhan inuu lacag baad ah ka qaado qof waxaysto iyo qof aan waxaysanba dadaa silsilado ku xirxiran oo goobaha cadowga uu joogo silsilado loogu xiraa oo guryahoodii laga yaabo inaanan dab lagu shidan si ay u bixiyaan ganaax la ganaax taa marka waxay ku tusaysaa qofka haddiiba uu heli karo asagaa gurigiisa ku biilan laha taa waxay ku tusaysaa inaanan cadowgaasi wax arxana iyo wax naxariisa iyo wax maaragtaa yacni qofka bani aadamku iska nool xataa qofka cadowga ahaa xataa intaas laga helaa taa marka kuwaan wax lagu tilmaamo oo yacni kelimo walboo lagu tilmaamo iyadaa maaragtaa ka ashaadanayso marka waxaan rabnaa cadowgaasi in deegaanada Soomaaliyeed oo dhan laga xoreeyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan say u istaageen waa ku mahadsan yihiin gaar ahaan reer Galmudug waa ku mahadsan yihiin madaxweyne Qoorqoor iyo maamulkiisa sida ay u soo abaabuleen oo ay maaragtaa in cadowgaas la iska kiciyo ay maaragtaa ay ugu soo diyaar garoobeen si ay u garab istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolada dalka oo dhan ka wada in cadowgan laga sifeeyo nimankaasi luqad aan maartaas ahayn oo ay yaqaanaan mala wax allaal wixii luqad bani aadam lagula hadlo way soo gebagaboobeen maartaas bisay yaqaaniin waxaan codsanaynaa qof walba oo Soomaaliyeed oo heli karo inuu nimankaasi maar ku dhufto oo toorey la dhaco oo ilaah hadduu ku idmaayo wax allaal wuxuu heesto uu la dhaco heli karo inuu ku dhufto gobolba uu joogo waxaan kaloon codsanaynaa waayeelada haweenka Soomaaliyeed dhammaan odayaasha qof walba oo wiil uga jiro shabaab inuu wiilkiisa u yeerto qof walba ay gabar uga jirto dhinacaas inay u yeerato waxaa hadda halkaa yaalo meedad dad
soomaaliyeed ahaa oo inta maaragtaa fikirkoodii la rogay oo maaragtaa caqligoodii la rogay oo bani aadamnimada laga saaray oo hooyooyinkoodii aabbayaashooda iyagoo gumaadaya halkan lagu laaday waxaan rabnaa waayeel walba iyo hooyo walba iyo qof walba inuu maaragtaa waxaas xal uu u soo helo oo ilmihiisa kala soo baxo meedadkaas waran subax walbo waxa waaye waa ugu yaraan waa meed oo qof Soomaaliyeed ay u badan yihiin dad ajaaniba waa ku jiraan oo haddaba mid haddaan halkan ku soo aragnay ajnabi ah laakiin dadka Soomaaliyeed waayeel iyo maaragta dhalinyaro iyo qof walbo oo nimankaas ku dhex jiro inuu ka soo baxo waxaan kaloo codsanaynaa hantida baadda ay nimankan la siinaa in laga joojiyo qof walba oo Soomaaliyeed waxaa jirto deegaan ah inaad baad ku bixiso aadan ku qasbaneen oo ku dhow nimanka dhulka loo soo baneeyo si ay isku arkaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo qoryaha qaatay iyo iyaga si ay isku arkaan meel ay ku gabadaan hawaayaan ha looga soo tago deegaanadan way xoroobi doonaan dhamaantoodana waa lagu laaban doonaa laakiin si aad maaragtaa ugu noolaato mudul inaad maaragtaa wixii hanti ah oo dadka Soomaaliyeed lagu qarxin lahaa aad u bixiso saxma aada u mahadsantiin mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa inaad maaragtaa ragga juhdiga inta la eg bixiyay oo ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku iskaashaday ah inaad maaragtaa halkaan nala timaado oo nala joogto waa kaaga mahad celinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiil xigeenadii meeshaan ku mitiday inaanan ceelkan aanan maaragtaa dadka Soomaaliyeed laga qarxin laga gubin oo ku mitiday aadan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga barino caafimaad saraakiishii askartii ku shahiiday inta maaragtaa gulufkan dalka looga xoreynayo cadowga socotay intii shahiiday Ilaahay shahaadadooda ka aqbalo inta dhaawacantayna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u boogdayo adinkana aad u mahadsantihiin guud ahaan maaragtaa dadka deegaanka reer Galmudugna xaqiiqdii waa u mahadinaynaa meel walba ay joogaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed bay garab taagan yihiin wax allaal waxay karaan la garab taagan yihiin under your leadership waa kaaga mahad celinaynaa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh